waxay fursadii siiyay inaan United Nations ka ama qaramada midoobay aan noqdo shakhsigii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee shaqo ka helay 65kii waxay noqotay inaan maskabyo waaweyn ka gaaro waxay noqotay inaan maxaan ku raayay jaamacad galo wax ka soo qalin jabiyo iminkana aniga jaamacad yeesho oo anigu arday wax baro oo anigu digriyadooda ama shahaadooyinkooda anigu aan saxeexo oo intaas oo kun oo qof oo aan ama isbitaalka ama jaamacada ku tababaray ayaa shahaadooyinkoodii saxeexay oo qalinkayga ku duugay waxyaabo badan ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan 1960 baad UN-ta ku geertay imisa sanad shaqeynaysaa markaa waxaan u shaqeynayay 2 sanadood iyo 10 bilood dalka Liibiya la bedelay sax wayoo intaan u qadaaf imanin Liibiya Tripoli baan ayaan tagay macallimad baa la iga dhigay wayo aniga oo macallimada xamar iskuulka kalkaaliyaasha umulisoyinka lagu tababaro ayaan macallimad ka ahaa 64 markaa 63 iyo 65 intiisii badnaydba iskuulkaasaan wax ka dhigay markaa Allah yarxamo odaygii aan wada joognay Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa de baarlamaanka ku jiray oo xamar baan tagnay Hargeysa aan isku guursanay laakiin xamar baan u wareegnay markaa maadaama Hargeysaba aan umulisoyinka tababari jiray ayaa markaan xamar u wareegay hadee tababarkii iskuulka United Nations gacanta siiyo ayaan macallimad ka noqday dalkan Carbeed iyo ilaa Bahrain Iran Afghanistan Pakistan wadamadaas oo kale aan xukumi jiray baa inay taxamilooda anigu eegi jiray saxi jiray ama tagi jiray soo taxaami jiray marka ilaahay wasiiraba ma hadaale لكن ليبيا maadaama aad saga tacab waxbarashad gasto kaaga duwan yahay wallahi wadan aan aad u jeclahay buu ahaa laakiin mar aan ku noqdan kormeer u tagay 8 sanadood anigoo ka maqnaa aan dib ugu noqday oo hablihaan tababaray qaar ugu tagay wasaaradda caafimaadka iyo maskabyo waaweyn ka haya haddana runtii waan ooyay burburkii iyo waxa ku dhacay aad baan u ooyay wadankaas sidii ahaa iyo sidii markaa aan ku arkay waan aad baan uga naxay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay dhibaatooyin imise 9 qabad ka fariistay UN-ta 97 markaa waxaad ku shaqeynaysaa inta sano afar marka la isu geeyo 2 sanadood bay ahayd laakiin dad muddooyin aan ka maqnaa baa jiray oo maraan xidhnaa mar odayga uu ahaa prime minister oo dalka aan ka shaqeynayay mar baasaboorka la iga qaaday oo aan wadanka ka bixi karaynin waxyaabo badan baa iska jiray mar anigu danahii aan wadanka ka hayay aan ii saamixin laakiin se marka aan ka maqnahayna la taliya ahaan bay marmar ila soo xiriiri jireen shaqooyin yar oo gaagaaban oo 2 toddobaad iyo meelaha waan ii diri jireen laakiin se shaqadii ku soo noqoshadii weynay sax waxayd 82kii iyadoo odaygaygu markaa uu ka yahay safiir xasan keyd Allah yarxamo dalka Cumaan ayay iiga yeedheen Djibouti nooga bilow tababarka umulisooyinka oo aan 8 bilood joogay markaas Djibouti sidaan ugu bilaabay Liibiya iyo wadamo kale ayaan Djibouti nooga bilaabay tababarka umulisooyinka howlaha waaweyn ee muddada dheer socda kontraakada dhaadheer tabiyo jooga in UN-ta laga shaqeeyo shaqooyin kale maxay kaga duwantay shaqa adag ma shaqa dad baan sawir ka haysan waxa horta sida imka aan ku arko isay imka u shaqeeyaan si aan u shaqeyn jiray suba dhawaa oo dhaliilo waaweyn baan ka arkaa iyo tolma dadkeena la inoo soo diraa sidii aan ahaan jiray iyo tababaradiina la siin jiray iyo shuruudihiina laga rabay inaan shaqada aan u qabanno kama arko waxaa tahay international civil service waxaad u shaqeynaysaa ummadaad u shaqeynaysaa adduunkaad u shaqeynaysaa waxaana jira dee contract lagu laqimayo oo lagu leeyahay shaqadaada waa inay caynkaa noqoto oo saa noqotaa oo saa ood ka soo baxda mushaahar fiican baa lagu siinayaa dabcan dee mushaharkii lagu siin maayo iska daadi laakiinse waxbaa lagaa rabaa oo waddankaa lagu magacaabay ama aad joogtad ka shaqeynayso waxaasay kaa filayaan inaad uga tagto marka aad bay u adagtay waa yahay 79 markaad fadhiistay adna hospitaal baad dhistay maxay ahayd waxa kugu riixay inaad dhistay hospitaalka Allah hooyo waa saddex nala wadaagtay hooyo waan damqaday wadankayga oo burburay baan arkay hospitaaladeedii la dumiyay baan arkay dhaawacii oo batay baan arkay shaqaalihii oo kala tagay baan arkay
qalab cisbitaalo meesha oo limbaanarkay anigina aan hawlgab noqday oo pension la siiyado xaqaygii la siiyado markaa madahab baan ku tuntaa madalxiis baan ku tagaa wadanka haddii aan tegi lahaa oo guryo waaweyn ka heli lahaa balse idinku ba u timaadeen unbaa ayaa ama boqoradii beerin lahaayeen laakiinse waan damqaday eedo waan damqaday ilaahay baana i garansiiyey cisbitaalkaas dhibaatadiisu ma yarayn waxaan hayay oo dhan buu liqay laakiinse dad baan soo saaray alxamdulilah wax qooma'ana ma hayo aan farxad ahayn wax ku dayashan noqday buu yeeshay buu noqday maanta cisbitaalo badan baa waddankii laga dhisaa waana taan doonayay tartanna maalan tartanno waan wada shaqaynaa kariiro gaabinaya waxbaanu siinaa waanu soo kobcinaa ummaddaydu wuxuu qabanaya ilaa hadda imise carruuraa ku dhalatay jaamacaddu markii dambe noqday jaamacadda ilaa 1500 baa ku 1200 baa ku jira inta qaar baa qalin jabinaya inta baxday lansiga 900 bay noqon imika 300 baa qalin jabinaya imse carruuraa ku dhalatay 22,000 iyo googo baa ku dhashay carruuraa ku dhalatay oo badankoodu yihiin hooyooyin meelaha laga soo gudbiyey dhibaatooyin qabay hadday meelo kala tagaan oo dhibaatooyin ay jiraan haddii wixii ay yara qalqalocdaan waa la soo gudbiyaa waana loo keenaa waayo waxaan nahay 24 saacad waanu furannahay sabab kale qaar habeenkii way xidhaan habeenkii dhakhtar malaha ma joogo suuxiye markaa malaha ma joogo sawiriyo ma helaan oo qoxiyo hubsiimo ay waxba u baahan yihiin marka maadaama 24 saacad waanu furannahay heeganka aanu hayno habeen walba dadku dhibaatada way iska badan tahay ilaahay nagu simay na garansiiyey inaan xoogga iyo xoolaha wixii ilaahay siiyeyba aan ummadayda wax ugu qabto ayaa mahaddaala haddaad caawa dhimatay is leedahay waajibkaagii wad aleedo in badan baa weli iga qabya waxaan kula dardaamaya kuwa iga dambeeya inaad ummaddiinnaas kalgacayl u yeelataan ood hoos u eegtaan oo aydinaan odhan anigu maxaan qabsan karaa ummaddaydana maxaan u qaban karaa in mabda'iina marba noqoto inaad isjeclaataan inaydinaan kala furfurmin inaydinaan doorasho iyo xisbiyo iyo waxyaabaha aad isku keendira aad ka digtoonaataan inaad dagaal iska ilaalisaan inaad meel uga soo wada jeedaan danta Soomaaliland iminka waxa badan la kala iibsanayo oo lacag iyo inta sanka laga marmariyo ilaa shaqooyin baa meelo kale la idinka soo siinaya dalal kale la idinka siinaya lacagta doono shaqada doono laakiin si xuduntaadu inay Soomaaliland ku xiran tahay ha iloobin oo wixii lid ku ah deeyaan adiga lagu soo abaansanin magacaagu waa Soomaaliland magac qurux badan baad leedahay ma tihid wax cid ka soo amaanaystay dal waa dalkaad u dhalatay waa dal jira waa dal jiri doona waa dal qurux badan waa dal yoomka ayaam aqoonsigiisa soo dhow yahay rajo weyn baan ka qabaa oo waddanka inoo badbaadiya oo af libaax baynu ka soo dhicino hore iyo af shabeelle naga gelin daweydinkaas